runtii hadallada mashruucan aan ka oran lahaa iguma filna waqtigan inaan halkan ka hadlo laakiin hadalkaygu wuxuu ku salaysan yahay oo kali ah mahadcelin aan idin mahadcelinayno khaas ahaan madaxweynaha islaamka iyo golayaasha xukuumadda sida wanaagsan iyo marti sharaftaba sida wanaagsan ee aad noo aqbasheen noogala soo qayb gasheen mashruucan dhiirigelinta u ah bulshadeenna tusaalaha u ah mujtamaceenna horumarkeenna astaanta u ah inaad nagala soo qayb gashaan ayaan hadalkaygu ku saabsanaa inaan idinkaga mahadceliyo waadna sharafteen waad mahadsantihiin madaxweyne waad mahadsan tahay waqtiga qaaliga ah adoo aad u mashquulsan inaad na siisid aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waxaan isleeyahay waad istaahishaa oo waxa weeye ganacsadahayagii aqoon-yahayagii madaxweynahayagii mar haddaad tahay waxa weeye waddanka horumarkiisana inaad nagu hoggaamisid waa midda aan niyadda ku hayno aan rajaynayno ilaahayna aan ka rajaynayno inuu aqbalo intaa ka bacdi mashruuca xaafadda amal village waa mashruuc ka kooban 1,100 guri oo wata dhammaan facilitieskiisii runtii qaabka loo balangareeyeyna uu yahay qaab casri ah oo xaafad walba xaafaddu ay u qaybsan tahay qayb walbana ay leedahay adeegeedii oo kaamila masaajidkii waxyaabihii dukaamadiisiga ahaa farmashigeedii station police waan ku talagalnay iskuuladii bay leedahay oo intermediate primary intermediate secondary aan ugu talagalnay ilaa college level aan ka fakarayno oo specialized areaooyin khaas ah aan ugu talagalayno inaan aqoonta aan dhinaca college aan ka galno taasoo aan ugu talagalnay dhalinyarada dibadda ka imaanaysa ee diasporada maadaama diasporadeenu aad waddanka ugu soo noqonayso inaan maaragtay aan soo dhaweyno aan u helno waxbarashadii ay ku haysteen wadamadoodii dadka waddanka ku nool ee aan diasporada ahaynna ay kula qalin daartaan oo bahalka la yiraahdo ay la wadaagaan sidaasoo iyadana laftigeeda affordable-ka aanan ka tegayno macquul aan ka dhigayno qiimayaasha aanan qaaliyeynayn internationalna aan ka dhigayno intaa ka bacdi mashruucan runtii isagana waxaan xusid mudan xogta mashruuca oo xoog leh waxaa bixin doona tiimamka iyaga dambe oo marketingka iyo guryaha noocyadooda iyo taybabka ay ka kooban yihiin iyo infrastructure-ka oo muhiimadda noogu weyn maanta inaan idinla wadaagno madaxweynaha iyo golayaasha xukuumadda iyo bulshada inteeda kale aan rabno inaan la wadaagno si hareeraha looga istaago oo mashruucu gacmo wada jir bay wax ku gooyaan baa la yiri gacmo wada jir bay wax ku gooyaan marka aan rabno anaga kaliya aanan ku filnayn dawladda aan ka rabno support fara badan iyo maaragtay garab istaag fara badan haddii ay madaxweynaha tahay iyo hadday golaha xukuumadda tahay intaba aan rabno hiil aan uga baahannahay islaamka waxyaabahan u casubna ay ka mid tahay in aad loogu dadaalo nabadgelyada oo magaalada innaga reer Puntland khaasatan Garowe waxa inoo iibsami kara productiga u horeeya aan iibsan karno waa iib waxa weeye oo iibkeena iyo nolosheena ay kor ugu kici karto oo dadka Soomaaliyeed aan soo jiidan karno waa nabadgelyada marka nuur iyo naaleeyo maanta looma kala maqnee nabadii in aad iyo aad awood la isku geeyo oo aynu soo jiidano bulshadeena diasporada ah oo dibadaha inaga jira oo lacagteena iyo hantideeniba ula xabawaray gobollo kale iyo wadamo kale ee soo jiidano Soomaalida kale waxaan idinku bishaareynaa xaafadda dadka iibsaday inay ku jiraan reer Koonfureed reer Muqdisho ay ku jiraan reer Baydhabo ay ku jiraan reer Somaliland ay ku jiraan cid walba aan loo kala maqnayn Arab iyo Cajaba ay iskugu jirto Soomaalidu marka taasna si fiican baan idin la wadaagi doonaa mustaqbalka runtii marka waxaan isleenahay xaafad modern ah oo casri ah oo Soomaalida ku midayn doonta deegaanka iyo wada jooga iyo wada noolaanshaha ayaan rajaynaynaa waxaan mar labaad aan mahadcelin u jeedinayaa madaxweynaha iyo golihiisa xukuumadda iyo islaamka oo ka jooga golihii dhaqanka iyo dhammaan shaqaalaha amal group iyo marti sharafta kale dhammaantood waxaan aanan doonayn inaan hilmaamo Hibanuura iyo Cabdisalaam Hadari oo iyaguna aad iyo aad noo sharfay oo nagala qayb qaatay xaafadda iibkeeda aan una mahadcelinayno waxaan uga bixi lahaa ku noolow dalkaaga la noolow dunida kale waa shicaarka mashruucan waana mahadsantihiin